السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضاود هذه الهانتين بكسر الوادة وبركة نورية وإذا كلا سؤال لي قدام مقالة لسعنا وورينا دي أتنا كهو سبتة سبسكرايب سيدو كلام كان بليل كفر وعن وحكوي ديني أن تدوينها وكل غن مقالة لسعنا فكر كودا كجا دني المساجد ده اللي حلو يقاب كاللوجو ارتيك ري حنون كوفيد 19 لا وشوان ورن مقعن على شاو وين كسر نورية ميديا ودوه ولا لا وحن كويديننا بل واحد نلو ذاكتا فكرك كاجا دن هذيك عهان مساجد ده إن الحلو سيدي بالورق فكرك والله أركاسي واحد معقولة أنا جاي لماها إن المساجد ده اللي حلو بيتك إله اللي حلو waxaan u arkaa cadhe ilaahay oo timi xanuun ilaahay keenay inay tahay marka aan waxaan aaminsanahay masaajidada meeshii lagu carar lahaa inay tahay oo dadku ay nafta moodi lahaayeen ku cibaadeysan lahaayeen waxaan kaga badbaadi lahaayeen marxaladan maanta taagan cabsidii ay kaga bixi lahaayeen inay tahay baan u aaminsanahay marka xiritaanka masaajidku wuxuu keenayaa alla ka cabsigii qofkii dadkii inay macnaha ayaan ilaahay ka cabsan guriyihii dad badan oo macnaha masaajidka awal adimaada ku imaan jiray wacdiga ku imaan jiray baan hadda salaadii ba ka tagay marka la masaajidada lagu kala tago marka fikirka anigu ma aaminsan soo dhaweyn maayo laba qodob kale aan soo dhaweynaya qaadka in la joojiyo qaadka annaga Itoobiya naga dhex furan ma garatay Itoobiya baa naga dhex furan xanuunkan Itoobiya uu saameeyay ilaahay baana gaalada ugu talagalay xanuunkan gaala lagu gaaguntiraya ma garatay la sacaanood haddii ay doonayso xanuunkan inay xakamayso laba shay wax ka qabato qudaarta iyo kumbushadan ka imaanaysa Itoobiya iyo dadka Oromada ee dareeraya Itoobiya ka imaanaya iyo qaadka saddexda arrimood wax ka qabato haddii la doonayo in xanuunkan sidii loo xakamayn lahaa ama loo ilaalin lahaa haddii la rabo filanka in la qabto masaajidada ayaa lagu meeraysan oo malcabadaha ayaa lagu meeraysan oo iskuulada ayaa lagu meeraysan ma garatay fikirka saliimka wuxuu ku tusaya waxa xalaashaana ku tusaya waxa xaraantaana ku tusaya ma garatay Itoobiya ka dhex furan Oromada baa dareeraysa oo xanuunsanaysa qaadkii baa dareeraya 40 gacmood baa jid qaadka galaysa mid waa soo xirxiraya mid waa raraya mid waa qaybinaya mid waa lagu naqaysan mid waa naqaysanaya 40 kun oo qof ay maraysa gacantiisa masaajidkina waan xunayna qaadkina celin mayno xagee adduunka laga helaa ay tahay waas waan fakirka waan baaraynaa annaga saddexda qodob waxna laga qabto qaadka iyo Oromada qulqulaysa iyo qudaarta kumbushadaa masaajidada ayaa lagu meeraysan masaakiinta ayaa lagu meeraysan annagu ilaahay inaan dhibanayno wali sognaa markay caqabad timaado xaq ilaahay baan u cararayna masaajidada aan ku cararayna beedka ilaahay baan ku cararayna waa maasantahay aad iyo aad mudanta qoreen magacaaga ciida bilaal yiraahdaa ila bilow ku soo dhawow Nuuriye Mine waa ku soo dhawahay bal fikirkaaga waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga kaaga aadan in masaajidada la xidho bal sidee u aragtaa waxa weeye marka ugu horeysa malaa'igta ilaahay waxay su'aashay waxay tiri buurahan waa weyn ilaahay oo maxaa ka adag ilaahay wuxuu yiri waxa ka adag birtana maxaa ka adag birtana dabba ka adag baa la yiri dabkana maxaa ka adag biyaha ka adag baa la yiri biyahana maxaa ka adag dabayl baa waxa ka adag dabayshana maxaa ka adag dabayshana quraanka ka adag horta waxan waa dabayshana quraankaas ka adag haddii quraanka la akhriso oo diinta la akhriso ilaahay la bariyo masaajidada la galo waxan ku dhacaya ma leh intaas ma kaga baxaya sidee weeye oo sidee looga hortagi karaa xanuunka corona waxa looga hortagi karaa quraanka la akhrisanaya ilaahay baa la barayaa taxuudka la qabsanaya saasa la yeelaya saan baa laga hortagi karaa wax waa dabayl in kasto ilaahay ku doonana ku ridayo kii kalena uusan ku rideen waxa weeye waa wax soo diray waxa weeye ilaahay baa lagu caasiyay diintiisa lagu caasiyay ummadda baa saxaasiday marka waxan waa tusaale ilaahay ummadda tusayo okay waaye bal sidee u aragtaa hadii la yiri masaajidada hal la xidho iyadoo qaadkii iyo meelihii kale waxa wadana soo galay taas waxa weeye diinta hal la xidho qaadkan ha socdo macquul maskaxda gali mayso waa in horta qaadkan kunka farood iyo kunka gacmood iyo kunka dawladood soo kala maraya ka waa la xidhaa masaajidadana waa in la gala lagu cararaa ilaahay wuxuu yiri marka yaabtaa masaajidka ku carara saas kaga baxay waa mahadsantaa ugu horreyn magacaaga sheekilka casaliya sheekhow ku soo dhawow ugu horreyn Nuuriye Media ma ku soo dhawaay bal fikirkaaga kaaga aadan in masaajidada la xidho sidee buu noqonayaa waxaad nala wadaagtaa waxa fikirkaygu noqonayaa dib baytullaahiga la xidho xagee lagu cararaya wixii ilaahay wuxuu fafiru ila Allah xagayga u soo carar kowde haddii la yahay masaajidada la xidhaya de xanuunka ilaahay baa keena horta laakiin qaadkiina la sii daayo masaajidda ilaahayna la xidhayo malcaamadihiiba de wax macquula maaha ilaahay xagiisa in loo cararo oo malcaamadaha aan la xidhin oo masaajidada aan la xidhin oo wixii ilaahay diintiisa ku sheegayba aan la xidhin oo ay furnaadaan
اوكي بالواي la qaban karana xanuunkanna dee اوكي واي qaabkees dhigi karaysa waa looga hortagi karaya xanuunka corona xanuunkan waxa dee ilaahay baa horta keena xanuunka oo dee sidii ilaahay u keeno baa dee looga hortagi karaa waxa looga hortagi karaa in qaadka la joojiyo in wax allaaliyo Itoobiya halka ka imaanaya macalooramada nalaga joojiyo kowdha ilaahay baa wax celin kara marka koowaad waa mahadsantahay ugu horreyn magacaaga xasan maxamed jaamac xasan oo ku soo dhawow nuuriye mine waan ku dhowahay waana salaamayaa waxaa jirta waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga kaaga aadan in masaajidada la xidho sidee u aragtaa anigu wax khalad aan u arkay in masaajidada la arko waayo diinta islaamka in loo cararaa loo baahan yahay markii la yaabo xagee loo ordayaa markaa ma cudurka ma xusuul gaala la aadaya markaa ma aqalgal maaha fikir khaldan baan u arkaa waxaan anigu taageersanahay in masaajidada la galo in qaadka Itoobiya ka imanaya la joojiyo qaadka in la joojiyo la joojiyaan taageersana laakiin masaajidka hal la xidho wax aqal geli kara maaha okay way qaabkee looga hortagi karayaa bas dhiilayd waxaa looga hortagayaa diinta islaamka oo qof waliba akhristo oo xagga ilaahay loo cararo baa laga hortagi karayaa baan islaahay laakiin wax daawo ma leh gaalada baa daawo weyday wax daawo ma leh diinta islaamka kaliya laga hortagi karayaa xagga diintana ha loo cararo okay way hadda waxaad ka dhawaajisay in isla masaajidada loo cararo masaajidada la galo bal haddii la dhahay masaajidada ha la galo haddana la yidhi labada qof ay wada tukanaya wixii 3 mitir bannaan 3 mitir leeg ha loo dhaxaysiiyo sidee taana u aragtaa maya diinta qof diinta heer ilaahay qof jeeda wax xubaba ina helayaan maba aaminsaniba laba talaaba tiriye haday safka isku hayaan oo diinta islaamka ay dhinaca ku hayaan qowlka ilaahay ku hadlayaan in wax gaarayaan maba aaminsaniba وما سنتها وقرين مقعد بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وحلا يا فرحان حسن فرحان وكسر ونوري ميديا وكل ولا الونوي وحنا لو ذاك فكر كاجا أدن إن مساجدة اللي حلو فكرت إن مساجدة اللي حلو ووحن منها صورة قراهين وأنا خرج حوالي مروا البإله من هو استعجلنا عسى وشلة إن إله بينه عافمات كودي سنة عذر كانوا حلوين إن الله ينقدوا ودمدا أود الشكتي أود قوادي أود اللبادي إلهي بأود له مركا إلهي بأود ستوسيا مركا إلهي وين قدوا يا بالملة الكريم إن شاء الله. أوكي واي قاب كله قور تجري يا بس ليه الحنونك. والله إن ده إلهي بقى قالوا لكن من إلهي يوم بين إلهنا يا نقول ده ضمن غير إلهي له كست اسمه هاي اسمه لاني كانوا إلهي بين إلهنا يا ولا أروح كلا عرضين هل تكال يسوتشرو يعني ليس سلامين واحد معقول ما وأي قفك إل كيو إن بدل كم قناة وسلامي كرا استوينا إلهنا كانوا قفكي برتوا على سمية تحضر كنا وأنت تحضر كنا وسلالنا الله أود له وحلاليه. أوكي واي بل هديب الله دهي ماشي كريان كل بدبادي إنه واحد مساجد كا هديب الله دهي مساجد ده هلا حلو قاب كيك اللي لو بدبادي وصلي له. هو من هذا واحد مدني عقل إلهي مركز اللي يابو مساجد ده لو عرّجري. من بيتك إلهي بقى لو عرّجري لو عبادة سنشري وقرآن لو آخر سنشري. هدي اللي مساجد ده هلا يعرّو حاجة اللي يستاجع يا حاجة اللي يقول منها عفمات اللي يقول لي اللي يقولنا متقلية. وضدكم من عقل إلهين. مساجد ده إن لو عرّو وواجب. إلهي ما نقول شيء لكن هلا يعرّو هذا كره نبغى مقلبه. أوكي. وقرين مقعد. شاب عثمان عبدي. شيخ كسر ونورية ميديا. ما كسر وادي. واحد شرت فكر ورورين عن ودينا أنا تودينا أكون رقم مجالة. بل وحنا لو ذاك تفكر كاجا أدن إن مساجد هذا الحلو سيدا ورقتها. مساجد هذا الحلو وحنا حاجة جايين إن أنا هبونين. وايو مش أقول لك بحصل عليه إلهي لك بريء أيوه. إلهي من أودي سوي أنا قاعد نقايا ما ملكية أدونك مركا ومش أقول لك بدبادة أيوه إلهي لك بريء أيوه لك عبادة سنة أيوه وهي رمضان ونلقي صف الله ضحي مركا إن الحلا إلى ما هبوناري. أوكي واي قاب كله قور تيكري بس ليه الحنوك. حنوك دورت إلهي بقى يكويس قفلي بكور تيكر ويا كم قور تيكر نود إلهي بقى قرنا يسيل قور تجايو. يا مركا أنا قدي سيدي إلهي لمريم مويا أنا يسيل قور تيكره وكلام قرنايو. وما سنتها. مقعي وحا ليا فارح محمد صالح دكتورka ku magacaaleera دكتور ku soo dhawow nuuriye media nuuriye waxa weeye waa salaamay aad baan salaamaya waayahay bal waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga kaga aadan in masaajidada la xiro sidoo waragtaa masaajidada dad muslimiina waxa weeye deebaydkii lagu carray jiro ilaahay waxa weeye lagu carray jiray horta lama xidhi karo waa qodobka labaad dadku waa muslimiintuna waxa weeye meesha ku tukanaya haday xidhaan magaala imaanaysa xaqaynu adnaa meel kale u carro horta ma jirto haba yaratay takala waxa ku darsanaya iskoolka in la furo oo malcaamadaha la furo oo dadku waa dad islaama xanuunkan uu ku dhicmaayo dad yar baa la karbaashaya oo gaara baa la karbaashaya ma garatay karbaashkan wuxuu ku soconayaa waan yar oo tirsanoo intaasna waxa weeye waa iska dhamaanaysa ma garatay waa waxa weeye waa adduunka oo dhan maraya waxa kan
ma garatay hadda macallimiinta 500 oo macallin ama quraan ha noqoto ama haddii la kuuranayo iskool ha noqoto baa maanta bilaa mushaara 2 bilood mushaara haddii masaajidkii maanta loo soo dhigtay dee taasuna ka daran okay way qaabkee looga hortagi karaa wasdiile waxa looga hortagi karaa dadku taxadar sameeya oo waxa weeye iswacyi geliya oo wax isu sheega oo qaadkan qulqulaya oo leeylo nahaar qulqulaya oo Itoobiya kaga imaanay in la joojiyo la xadido horta marka hore horta way kaga maartay yani joogsan karaa tan labaad waxa weeye dadku waa dad muslimiin ah yaan la kala shakiin yaan la kala cararin waxa weeye haddii kala carro buufsada ku kala rido dadku waxa weeye yaa wax kala meesha soo galaya moogta xanuunaa soo galaya shakiguna waa xanuun ma garatay marka waxaan ugu hambalyeynaya bajaajada leeyahay hal qof baa raacaya qof baa tiri 100 qof baan saaranaa 100 ma garatay annaga isu talnay gaadiidka annaga iskale ma garatay gaadiidka annaga iskale taas waxa weeye de waxa warka waa kulalihi weeye birtan ana qaadka in la joojiyo qaadkaas Itoobiya iyo kaga furan hadii la kuran halkan kaga furan in la joojiyo wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waa mahadsantahay warren magaca هذا واحد اسمه أحسن درويش أحمد درويش oo ku soo dhawow Nuuriye Media waa ku dhawaa waxa jirta fikir ururin aan weydiinayno dadweynaha ku dhaqan magaalada bal waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga kaga aadan in masaajidada la xiro sidoo waragtaan masaajidku waa meeshaan sidii Ilaahay uu noo sheegay rasuulkii Nabi Maxamed meeshii la isugu yimaanay ee salaada lagu tukanay ee Ilaahay lagu bariyay balse masaajidada amaamirta dawlad baa bixin karta ana madaxweyne ma dhaarin hadii se la dhaariyo oo madaxweynaha president Soomaaliya ka ahay daamarka amaamirta dawladdu ay jeediso ama madaxweynuhu jeediyo shacabku waa inuu qaato hadii la yiri meheradaha la xiro meel wax lagu baranayo madrasadihii iyo malcaamadii iskuulada ha la xiro masaajidada ha la xidhan amaamirta in la qaato weey hadii sidoo waragta masaajidada in la xiro maadaama ay tahay meesha kaliya lagu badbaadi karin waxaan u arkaa ama wixii oo dhan la xiro ama wixii oo dhan la fasaxo ay iska furnaadaan saasaan arka waa mahadsantahay warren magacaygu Cabdullaahi Faarax Cabdullaahi oo ku soo dhawow Nuuriye Media waan dhawahay saaxiib bal sidee waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga kaga aadan in masaajidada la xiro sidee waragtaa anigu masaajidada fikirka aan ka qabo waxa weeye inaysan sax ahayn in la xiro waayo waxaan leeyahay dawladdu qaadka way ka xishootay masjidada laga xishoodo masjid waa kuwii lagu caarar lahaa ee maartay alla lagu bari lahaa ee wax kasta dhibaato ayaga laga hortagi lahaa qaadkina waa laga xishooday masjidada laga xishooday dawladda leen marka anagu adana shacabkana fikradda aan ka dhibarina waxay tahay masjidada in la xiro aad baan uga xunay saddex xaram la xirina muslimiintuna waxaan aragnaa inaysan dawlad lahayn aad iyo aad baan uga xunay dawlad masaajidada in la xiro waxa dhici karin way marnaba waayo waa meeshii lagu caarar lahaa marka aad iyo aad waxa looga hortagi karaa meel kasta oo maqaadiraad iyo wax qaadka iimaaraya anu qaadkan ka soo horjeedaa qaadka markii rag daraasiyeen waxa la yiri mijintii waxa soo taabtay ilaa 16 qof marka waxa ugu weyn ee jooji kara keeni kara faafi kara waa qaadka marka waxaan leeyahay qaadka laga hortago oo la joojiyo markii qaadka laga hortago wixii muqaadaradan laga hortago ayaa wixii kale la xakameyn kara oo loo sidii kara